injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 9aad ciise intuu socday wuxuu arkay nin indhalaan ku dhashay xertiisii waxay weydiiyeen oo ku yiraahdeen macallimow yaa dambaabay makan ba mise waa waalidkiis inuu indhalaan ku dhasho ciise ayaa ugu jawaabay ninkan iyo waalidkiis midna ma dambaabin laakiin waa in shuqulada ilaa lagu muujiyo isaga waa inaan samayno shuqulada kii isoo diray intay maalin tahay habeen baa imanaya mar aan nina shaqayn karin intaan dunida joogo waxaan ahay nuurka dunida markuu sidaas yidhi ayuu dhulka candhuuf ku tufay oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey markaasuu dhoobadii wuxuu mariyey ninkii indhihiisii oo ku yidhi bax oo ku soo maydho balliga siloam la yidhaahdo oo fasirkiisii yahay waa la diray wuu tegey haddaba oo soo maydhay markaasuu yimi isagoo wax arkaya sidaa daraaddeed derisyadii iyo kuwii hortii arki jiray inuu miskiin yahay waxay yidhaahdeen kanu miyaanu ahayn kii fadhihi jiray oo dawirsan jiray qaar baa yidhi waa isagii qaarna waxay yidhaahdeen maya laakiin wuu u eg yahay isagaa yidhi isagii baan ahay sidaa daraaddeed waxay ku yidhaahdeen haddaba sidee bay indhahaagu u furmeen wuxuu ugu jawaabay ninka ciise la yidhaahdo ayaa dhoobo sameeyey oo indhahayga mariyey oo wuxuuna igu yidhi siloam u kac oo ku soo maydho sidaa aawadeed ayaan tegey oo markaan soo maydhay ayaan arag helay kolkaasay waxay ku yidhaahdeen xaggee buu joogaa isaguse wuxuu ku yidhi ma ogi markaasaa kii markii hore indhaha laa waxaa loo geeyey farrisiintii waxayna ahayd sabti maalintii ciise dhoobada sameeyey oo indhihiisii furay mar kale haddaba farrisiintii waxay weydiiyeen siduu araggiisa ku helay markaasuu wuxuu ku yidhi dhoobuu indhaha mariyey oo aan maydhay oo waxbaan arkayaa sidaa aawadeed farrisiintii qaarkood waxay yidhaahdeen ninkan xaggii ilaah kama iman waayo sabtida ma dhowro qaar kalese waxay yidhaahdeen sidee baa nin dembi leh calaamooyin kan oo kale ku samayn karaa markaasay kala qaybsaneen dhexdoodii waxay haddaba ninkii indhaha lahaa ku yidhaahdeen maxaad ka leedahay isaga waayo waa kan indhahaaga furee wuxuu ku yidhi waa nebi sidaa aawadeed yuhuuddu kama rumaysanin inuu indhalaa oo uu araggiisa helay ilaa ay u yeedheen waalidkii kii araggiisa helay oo weydiiyeen iyagoo leh kanu ma wiilkiinniba aad leedihiin wuxuu ku dhashay indhalaan sidee buu hadda wax ku arkaa waalidkiis waxay haddaba ugu jawaabeen waannu garanaynaa kani inuu wiilkaygii yahay oo uu indhalaan ku dhashay laakiin siduu hadda wax ku arko garan mayno kii indhihiisii furayna garan mayno isaga weydiiya waa nin weyn waa isu hadli doonaaye waxyaalahaas waxay waalidkiis u yidhaahdeen waayo yuhuudday ka baqeen maxaa yeelay yuhuuddu waxay mar hore ku heshiiyeen in qof uun hadduu u qirto inuu yahay masiixa sunagoga laga saaro sidaa aawadeed waalidkiis waxay ku yidhaahdeen waa nin weyn ee weydiiya isaga haddaba mar labaad ayay ninkii indhaha lahaa u yeedheen oo ku yidhaahdeen ilaah ammaan waxaannu garanaynaa inuu ninkanu dembi leeyahay wuxuu haddaba ugu jawaabay inuu dembi leeyahay garan maayo waxa keliyoo aanse garanayaa inaan indhalaa oo aan haddana wax arko waxay haddaba ku yidhaahdeen muxuu kugu sameeyey sidee buu indhahaaga u furay wuxuu ugu jawaabay horaan idinku sheegay mana aydnaan maqlin maxaad u doonaysaan inaad mar kale maqashaan idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad xertiisa noqotaan markaasay caayeen oo waxay ku yidhaahdeen adigu xertiisa baa tahay annaguse waxaannu nahay xertii muuse waxaannu garanaynaa inuu ilaahay la hadlay muuse laakiinse ninkanu meeshuu ka yimid garan mayno ninkii baa u jawaabay oo ku yidhi waxa kan waa yaab inaydnaan garanaynin meeshuu ka yimi isaguna uu indhaha ii furay waannu garanaynaa inaan ilaah dembiilayaashii maqlayn laakiin wuxuu maqlaa kii ilaah caabuda oo doonistiisa sameeya tan iyo dunida bilowgeedii lama maqlin nin indhaha u furay qof indhala'aan ku dhashay ninkani haddaannu xaggii ilaah ka iman waxba ma uu samayn kareen markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen dhammaantaaba dembiyo waad ku dhalatay ee ma waxbaad na baraysaa kolkaasay debadda ku tuureen ciise ayaa maqlay inay debadda ku tuureen wuuna helay oo ku yidhi wiilka ilaah ma rumaysan tahay markaasuu u jawaabay oo ku yidhi yuu yahay sayidow aan rumaystee
ciise ayaa ku yidhi waad aragtay waana isaga kan kula hadlaya markaasuu ku yidhi waan rumaysnahay sayidow wuuna caabuday ciise wuxuu yidhi waxaan dunidan u yimid xukun kuwa aan wax arkin inay wax arkaan kuwa wax arkaana inay indhabeelaan kuwii farisiinta ahaa oo la joogay ayaa waxyaalahaas maqlay oo waxay ku yidhaahdeen annaguna ma indhala'nahay ciise ayaa ku yidhi haddaad indhala'aan lahaydeen dembi ma aydin lahaateen laakiinse haatan waxaad tidhaahdaan waxbaannu aragnaa dembigiinnu waa sii jira